Somaliland ayaa waxa uu qeyb u yeelay ganacsiga qaadka iyo duulimaadada diyaaradda Ethiopian Airlines. Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta ay diyaaradda Ethiopian Airlines uga degto Hargeysa iyadoo la joojiyo duulimaadada kale, sidoo kale sababta Somaliland looga mamnuuci waayay qaadka ama bajaajka. Ugu horreyn, wasiir Kaahin ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya xayiraadda ku soo rogtay duulimaadada ay diyaaradda Ethiopian Airlines noqotay tan kaliya ee ka shaqeysa danta maamulka Somaliland, waa sida uu hadalka u dhigay. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay isku khilaafeen joojinta duulimaadada iyadoo markii dambe ay isku raaceen, sida uu sheegay in Ethiopian Airlines ay Somaliland ka sii wado duulimaadadeeda, isagoo xusay in haddii xaalad degdeg ah ku timaado Somaliland ay diyaaraddaasi oo kaliya ku tashanayaan. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa sidoo kale ka hadlay qaadka laga keeno Ethiopia ee soo gala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Somaliland. Waxa uu sheegay in xaaladda dalka Ethiopia ay hadda ka sii dareyso oo kiisaska laga diiwaan geliyay ay gaarayaan ilaa 50 kiis. Ugu dambeyn, wasiirka ayaa sheegay in dadka ka ganacsada qaadka ay haatan aad ugu baahan yihiin, isla markaana haddii la joojiyo aysan xukuumadda shaqo u haynin, taasi oo ku qasbaysa in la isku dheelitiro go'aanada soo baxay, sida uu hadalka u dhigay. Saaxiibada qiimaha badan oo guud ahaan waa inaga inta warkii waad ka daawanayseen Radio Wadani TV xaruntiisa magaalada Beledweyne. warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Yaasin Ali Axmed Looyal. cidii uu sheego waxay dib kaga dalacan karaan baraheena bulshada ee ku sundan magaca Radio Wadani TV. idinkuna aad ku mahadsantihiin daawashada warkeena. warkan war la'aana amaana.